السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن مركل مقال نجلس ومقضي ولا الصوماليات أو نجوس وبقضي حفيز كدور ميديا إسلام مركان وحولد على دعاية حنون رنتي إنتان أو مضى حقيقة الدنبا يا بابا أصلا ولا كان صوماليات هذا كان وادي بيا مركب برشة الصوماليات يسوق ولا لهم محسنين تودن وحن ربنا إله درتي سنة وجر جرتان والله قف كان وقف كلية إمانتي $1 أما $1 أما هل سنتات بحثت حتى وإله ميل غير قبته وكاga soo bixinay xanuun daran ayaa haysta qaybta dambe ee dhigta ayaa go'an daawadayaal ee aan dhamaanteen u gurmano walaalkeen xanuunsan aadan ayaa lagu magacaabaa xafiiska xitaa ma awoodin inuu socdo asiga oo la wada ayaa la keenay halkan xanuun daran ayuu in muddo la jiifaa Allah subhanahu wa ta'ala aniga iyo adinka waa u simanahay inuu Allah subhanahu wa ta'ala midna caafiyo midna xanuun oo siiyo waana taa qadarta Allah oo adoomihiisa mid walba ugu talagala waana imtixaan adduunyo dhamaantiin waxaan Ilaahay dartiisa ka codsanayaa inaad walaalkan u soo gargaartaan oo walaalkan soo caawisaan waxa ugu yaraad ku caawin kartaa yaa hal senti $1 $1 iyo hadaadan lacag xataa u awoodin inaad ku caawiseen inaad muuqaalkan qabato aad meel dheer gaarsiiso waxay kamid tahay sadaqa jaariya isla markaana biri ayay ku doodi doontaa sadaqadaas qofka maanta u baahan in la garab istaago qofka maanta u baahan in Ilaahay dartiisa lagu caawiyo waa aadan oo kale runtii hal mar ayaan fiirshay mar kale waan awoodi waayay inaan fiirsho sababtoo ah intaan oo dhan ayaa go'an xitaa hilibkana waa la arkayaa xaalad daran ayuu walaalkeen la dhiban yahay isla markaana waa aabba daa runtii duruuftuna ay weheshatay awoodi waayana in la geeyo isbitaal ama meel lagu xanaaneeyo ama lagu dabiibo caafimaadkiisa fadlan dhamaantiin aan u istaagno aadan oo Ilaahay dartiisa aan ku caawino isla markaana xaalad daran sida u jeedaan xitaa fadhiga oo fadhiyo xitaa uu jareynaya oo ma awoodo inuu si toos ah indhihiisa ama sidoo kale si live oo kaamirada ugu soo hormuuqdo muuqaal ku soo daawateen walaalkeen aadan madaxa ama qaybtan dambe oo baabaasan kan karaya uga dhacday halkii cirbad oo halkii mar lagu duraayna waxay joogtaa sida eheladay noo sheegeen oo nugula sugan xafiiska $175 ayay joogtaa isla markaana dhowr cirbadood oo loo soo qoray daruufta ayaa u diideen cirbado kale ay soo qaadaan isla markaana la duro aadan oo dhibanaan la xanuunkan kan karada intaan dambe ayaa runtii xaalad adag ka jirta isla markaana ay banaanta qofna ma daawan karo oo runtii markii aad aragto waad qiiroonaysaa ilinta xitaa waxa macquul ah inaad soo daadiso marka Ilaahay dartiisa aan ku caawinay cirbadahaas walaalkeen oo u baahan yahay halka xabana waxay joogtaa $175 oo cirbadahaas oo ah kuwa kan karada dhowr cirbadood ayaa runtii lagu duray haddana cirbado kale ayuu u baahan yahay laakiin familka iyo sidoo kale walaalaha gacanta ku hayo ee aadan la dhashay ama qaraabada leh waxay awoodi waayeen in walaalkeen markaan cirbadii joogtay $175 u soo qaadaan oo lagu duro Ilaahay dartiisa aan ku caawinay hal senti $1 iyo sidoo kale $10 waana awoodnaa maanta inaan maqaayadaha lacag intaas ka badan ku galno runtii biri ayay saaqiro noo doodi doontaa waxaan maanta baxsana ee Ilaahay dartiisa aan ku soo caawino walaalkeen aadan lambarka shaashada saaran ayaad nagu soo diri kartaan wixii aad awoodaan adiga daawanaya hadaadan lacag u awoodin hadaadan hal senti awoodin hadaadan $1 awoodin hadaadan $10 awoodin Ilaahay dartiisa kugu dhaarshay muuqaalkan u sheer garay walaalaha muxsiniinta dhamaan waxaan Allah subhanahu wa ta'ala idinkaga baryaa inaad walaalkeen soo caawisaan dad badan oo Ilaahay waxsiiye ayaa jira oo cirbadaha dhan u awoodaan aadan ama walaalkeen u awoodaan isla markaana xanuunkan la qaybsan lahay Ilaahay dartiis wixii aad awoodaan ku soo caawiyo walaalaha muxsiniinta ee Ilaahay waxsiiyana maanta kale waa maalintii runtii aad Allah subhanahu wa ta'ala bedel khayr qabaad uga heleyseen maadaama aadan oo kan kara la xanuunsan yahay cirbadiisina joogto $175 anaga durdur ahaan waxaan xafiiska ay noogu imaadeen walaalaheen halkaana waxaan u soo fadhiisanay inaan caawino isla markaana muuqaalkiisa idin soo gudbino oo aan soo baahino xaaladda dhabta ay ku sugan yahay walaalkeen xanuunsan asiye lambarkaas ayaad ku soo caawin kartaan walaalkeen ma awoodo inuu in la hadlo mana awoodo runtii inuu idin dhaho intaan ayaan u baahanahay mana awoodo inuu dhaho baahidan ayaa maanta dareemaya ee dhamaantiin aan ku caawina lambarkaas ayuu wataa oo walaalihiisa iyo sidoo kale qaraabada la socota ayaa lambarkan gacanta ugu hayaan hadal xitaa warkiisa ma jireen lambarkan aan ku caawino qof walba wixii awoodo hal senti $10 ilaa $100 wax hadda
hadda ugu baahi badan yahay ayaa cirbadaas joogta $175 oo ah cirbadaha maalin walba lagu duro faamilka ama qoyskan ay awoodi waayeen lambarkan iyo lambar kale oo samneeda ayay wataa walaalkeen oo walaalihiisa ay gacanta ku hayaan bacdan aad u jeedaan waxa ku jirto qayb kamida daawooyinka uu isticmaalayay walaalkeen aadan hadaan xitaa mikrofoonka u dhiibi lahayn oo aan codkiisa idin soo baahin lahayn ma awoodo codkiisa inuu in la hadlo laakiin anaga ayaa ka turjumayna codkiisa meel dheer oo gaaro walaal ilaahay dartiis ayaan idinka codsanaynaa idinkana baryaynaa soo caawiyo walaalkeen dhiban xaalad adag ayuu ku jiraa Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ugu bariyaa bedel khayr qaba inoo siiyo